dhaqamada aanay dadka qaar jeclayn inay arkaan marka aad la joogto. kow isxoqidda faraha badan in heer la maqlayo aad cidiyahaaga iyo jirkaaga la dagaalanto. labo dilaacinta finanka wejiga gaar ahaana marka findoobku wejigaaga ka buuxo. haddii fin uu wejigaaga ka soo baxo ha dilaacin, iska daa. saddex sanfaraynta ama duufsiga waa laga wanaagsan yahay inaad sanka faraha gelgeliso ama aad maanta oo dhan fiif ku hayso. kuwa kugu salaamaya farahaas baana ugu daran. afar nadiifinta dhagaha inaad dhagaha iska nadiifiso waa wax wanaagsan, laakiin waxaa laga fiican yahay in aad qoriga dhukayga saaran eegto ama aad ursato, iyo inaad ilkaha u cadayato sidii in aadan guri lahayn. shan qufaca, hindhisada iyo candhuuf tufidda adiga oo aan afka qabsan ama tiish adeegsan, weliba xilliyada ay ugu daran tahay waa xilliga ay fayrasyadu jiraan. lix hadlidda marka ay cunto afka kaaga buuxdo, waxaaba ugu daran marka aad isla cunaysaan in wax afkiisa ka soo baxa ay cuntada dib ugu soo noqdaan. toddobo cunidda cidiyahaaga sidii nin in aanu habeen u soo jeedin hindisidda cidiya jarka ama wax cidiyaha la isaga guro. inaad ilkahaaga geliso cidiyaha oo aad sidaas ku jarto waa laga wanaagsan yahay. sideed timaha oo aad shaandhaysato ama aad make up dadka hortooda ku marsato adiga oo gurigiinna howlahaas oo kale ku qabsan kara. sagaal xanjada oo aad buufiso inaad dadka hortooda xanjo ku calaliso ayaaba ceeb ah, ka waran haddii aad buufin iyo dhac isugu darto. toban bixinta kabaha buudka ah iyada oo sigsaantaada urta ka soo baxaysa ay dadka dili karto. kow iyo toban daacada iyo dabaylaha koonfurta labaduba waa laba aan kala dhicin, meelaha ay ka kala yimaadaan baase kala duwan. laba iyo toban inaad cuntada daadiso sida ciyaalka inaad cuntada u daaqdo oo ay kaa daadaadato, ama inaad saxanka bariiska ah kala bar dhulka siiso waa dhaqan xumo. saddex iyo toban qaadashada alaabta qaaska ah ee dadka sida taleefanadooda iyo kabahooda. afar iyo toban suuliga oo aad meel dagaal baas uu ka dhacay aad ka dhigto. saaxiibada sharafta leh ee ku xiran bartan waxaan idinka codsanaynaa inaad subscribe saartaan barta YouTube-ka ee Walaalka Show. waxaan idinkugu soo gudbin doonaa sheekooyin waxtar u leh bulshada iyo kuwa iska maad ah. saaxiibayaal adinkuna inagu dhiirigeliya like-ta, share-ta iyo subscribe-ta. mahadsanidin.